وألقي السحرة سجدين. mahad waxa uu ahaa wiilkii dhalinyarada ahaa ee isagiyo qoyskiisa gurigii ay deganaayeen ee ku yaalay xaafadaha masallaha u gubtay kaas oo ay wadaadada ama culimadu sheegeen in arrintaasi ay sababtay fal sida ay sheegeen iyagu sheekh jaamac wadaad oo ah gudoomiyaha xarunta Diburaxma oo ka shaqeysa arrimaha cilaajyada oo ka daawaday warbixinta wiilkaasi mahad telefishinka caalamiga Hon Cable TV ayaa baadi goobay isla markaana safar uu kaga yimid magaalada Burco uu ku yimid Hargeysa ujeedadiisuna ahayd sidii warbixintaasi Hon Cable TV uga daawaday ugu tagi lahaa guriga wiilkaasi uu degan yahay si uu ugu sameeyo cilaajamada weyn ilaahay dartiya oo tabarucaada ayaa la soo xiriiray telefishinka caalamiga Hon Cable TV isla markaana waxa uu gaaray guri ay joogaan mahad iyo xaaskiisa oo ah guri qaraabada ah maadaama gurigoodii iyaga hore u gubtay oo ku taala koonfurta magaalada Hargeysa sheekh jaamac wadaad ayaa markii uu gaaray isla markaana la kulmay mahad waxa uu ka wareystay sidii wax u jiraan isagoo mahadna uga sheekeeyay xaaladii kala duwanaa oo la kulmay sheekh jaamac wadaad ayaa intii uu ku sugnaa guriga uu degan yahay mahad iyo xaaskiisu waxa uu ku akhriyay quraan isla markaana uu sameeyay daaweyn jaamac wadaad ayaa markii howlgalkaasi uu dhameeyay la hadlay telefishinka caalamiga Hon Cable TV waxa uu sheegay inuu hawshan u qabtay ilaahay dartii isagoo uga mahad celiyay telefishinka caalamiga Hon Cable TV warbixintaasi uu caalamka gaarsiiyay waxaanu yidhi saaka insha Allah waxaan la joognaa qoyska waxa weeye dhib ku qabsaday ilaahay subxaanahu wa ta'ala dartii baan waxa weeye ugu soo gurmanay wax adduunana waxa weeye maaragtay lagama doonayo wax la taro mooyaane waxa weeye markii aan arkay waxa weeye TV Hon Cable oo waxa weeye arrintan baahiyay aad iyo aad bay waxa weeye u mahadsan yihiin runtii waa TV markasta waxa weeye bulshada waxa weeye garab taagan oo maaragtay baahiyadooda iyo dhibabka jiraba waxa weeye soo gudbiya si daacadana waxa weeye maaragtay u soo gudbiya marka insha Allah markii aan TV-ga arkay hawsha waxa weeye maaragtay aan daawaday ayaa waxa weeye insha Allah Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dartii baa waxaan go'aansaday inaan maaragtay reerka ugu nimaadno oo waxa weeye quraan iyo waxa weeye maaragtay duco insha Allah Ilaahay idimkii wax adduuna uma sidnee quraanka iyo ducada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala rabbi bariga aanu Ilaahay u barinay in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dhibka haysta uu kaga qaado oo kaga faydo marka waxa weeye Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaynu u weydiinaynaa in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dhibka ka qaado Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxa weeye waxyaabihii maaragtay adduunka ay ka khasaareen Ilaahay awil khayr qaba Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ka siiyo marka reerka insha Allah Ilaahay idamkii xaaladaasina waa xaalad sixir weeye quraan iyo ruqya ayaan waxa weeye insha Allah ku soo akhrinay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waa rajeenina in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala sida kaga furfuro oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxa weeye waxaan u weydiinaynaa inaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dib oo u dambaysa hawsha Ilaahay awood buu leeyahay waxa weeye kuwa dhibka wadana Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waa arkaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu iyaga qabto dhibkaana aanu dib inoogu soo celin baan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala weydiinaynaa bulshada waxa weeye Soomaaliyeedna si guud baan waxa weeye maaragtay sidii wanaagsanaada uga qayb qaateen si guud baan waxa weeye ugu mahad celinaynaa aad iyo aad baan u mahadsantihiin runtii waa dad wanaagsan waxa weeye bulshadu isgarab taagta oo waxa weeye maaragtay qofkii jilicsan iyo kii dhib haystaba waxa weeye waa la wadaagaan xarunta waxa weeye Diburaxmaanna insha Allah waxay u taagan tahay inay ummadda waxa weeye garab istaagto oo waxa weeye wixii dhiban ay waxa weeye maaragtay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala kitaabkiisa iyo quraankiisa iyagoo xambaarsan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dartii ugu gargaaraan qof kasta oo waxa weeye dhib haystaan oo nala soo xiriiri karaa insha Allah wax lagu xidhayaana ma jirto waxa weeye anigu waxaan ka soo safray Burco gobolka Togdheer waxa weeye magaalada madaxdiisa halkaasaan waxa weeye ka hawlgalaa runtii waxa weeye iminka socodkan waxa weeye waxaan ka imi Booromay waan ka imi ilaa Burco ilaa Booromay waxaan u socday qof kale oo isaguna aad u dhibaataysnaa oo waxa weeye maaragtay jiifay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waa kiciyay waxa weeye maaragtay Ilaahay hawshii waa maaragtay uu dhibkii haystay waa ka qaaday 9 bilood qof aan kor isu taagin buu ahaa waxaan waxa weeye go'aansaday maadaama safarka dheer aan soo galay inaan waxa weeye mahad iyo qoyskiisana waxa weeye maaragtay aan booqdo oo soo eego Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dartii waxa weeye maaragtay aan soo eego qisadii aynu hore uga soo baahinay telefishinka caalamiga Hon Cable TV taasoo la xiriireen dhowr jeer oo hore gurigiisa la gubay waxaanu mahad uga mahad celiyay dhammaan ummadda islaamka gaar ahaan Soomaalida meel walba ay joogaan kuwii u duceeyay isla markaana la wadaagay dareenkii waqtigaasi uu ku sugnaa waxaanu yidhi marka hore waad mahadsantihiin bahda Hon Cable TV waxaan aad ugu mahadnaqayaa oon maxay ahaydeen aan inaba aan iloobi karin dadkii wanaagsanaa ee ii soo duceeyey maxay ila dareenka noqday Soomaali oo dhan ahayd iyo maxay ahaydeen walaalkay sheekha oo isaguna dar Ilaahay saakay ugu yimday khayr Allah siiyo marka waxaan leeyahay ilaahay idinkii
wanaaga iyo maxaadana dareenka Soomaalinimo aad la damqateen ilaahay ducadeena ilaahay noo aqbal ilaahay idinkii khayr iyo waxaan rajeynayaa iyo wanaag iyo farxad baan rajeynayaa dadka Soomaaliyeed ee warbaahinta ka arkay markii ugu horeysay telefishinka caalamiga Home Cable TV dadka uu la wadaago arrimaha bulshada balse mar walba waxa uu taagan yahay sidii uu soo gudbin lahaa dareenka bulshada Cabdulqaadir Coday Home Cable TV Hargeysa.